بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا جماعة شعبي غير سوماليلاند meel kasta ay joogaan waxaan shirkan kooban u qabanaya maanta inaan u bayaamiyo mowqifka xisbiga shacbiga reer Soomaaliland iyo dhammaan daneeyaasha doorashooyinka Soomaaliland 27 July 2019 waxay shacbiga reer Soomaaliland u ahayd maalin farxadeed sababtu waxay ahayd waxa maalinta qasriga madaxtooyada lagu saxay heshiis ay kala saxdeen axsaabta qaranka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiskaas oo ay ku dhexdhexaadiyeen beesha caalamku nuxurka heshiisku wuxuu ahaa in la soo afjaro murankii komishanka iyo arrimaha doorashada ee socday muddo sanad iyo badh waxaana heshiisku ahaa in la dhiso komishan cusub lana bedelo komishankii hore baarlamaankana la geeyo mooshin ka dhigaya komishanka xubnihiisa 9 xubnood shacbiga waxa gashay rajo weyn iyo nayaayir in murankii komishanku dhamaaday lana qaaday dariiqii doorashooyinka ku qabsoomayeen ase yeeshee nasiib darro shacbigu wuxuu aad uga dheregsan yahay in muuse jidgooyo u galay mooshinkii sidoo awalba caanka ku ahaa jidgooyooyinka jidgooyadaasna ay ku dhimatay oo ku dhintay mooshinkii baarlamaanka ku socday isagoon gaadhin halkii uu ku socday hase yeeshee anagoo tixgelinayna axsaabta qaranku doorashooyinku inaanay dib u dhicin waxaa labada xisbi qaran wadatashi dheer kadib ku ogolaadeen inay doorashooyinka ku galaan 7 xubnood oo cusub 9 xubnoodna loo daayo komishanka soo socda inuu dhamaystiro iyadoo laga duulayo heshiiskaas laga duulayo waxa muuse u soo qoray axsaabta warqad 25 bishii 8aad iyo golaha guurtida warqadaas kaga codsanayo inay soo magacaabaan xubnihii komishanka cusub ee bedelayay komishanka muddaxileedkiisu dhamaanayo axsaabta qaranka ee wadani u celiyo golaha guurtidu iyagoo u hoggaansamaya heshiiskaas iyagoo tixgelinaya warqadda uu soo qoray muuse waxay soo magacaabeen xubno cusub golaha guurtidu soo magacaabay 2 xubnood oo cusub xisbiga wadani xubin cusub soo magacaabay xisbiga oo cidna xubin cusub soo magacaabay mar labaad nasiib darro isagoo jabinaya heshiiskii uu saxay muuse waxa uu soo magacaabay xubin kamida xubnihii muranku ka taagnaa ee komishankii hore ee lagu heshiiyay in la bedelo آيات قرآن waxay leedahay وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهكذا حديث كمذا المسلمون على شروطهم ولما بالشيء إن ضدك مسلم مركب وحضر قرآن وهشيس كاسي هي متقبلية مسلم كده قالوا waxay kontaraaga u yaqaan waxa weey wax laba qof ku heshiiyaan heshiisku ama qoraal ha noqdo ama af ha noqdo saxaafaddu goobjoog bay ka ahayd heshiiskii markii la saxeeyay
waxa kale oo muuse soo magacaabay xubin xisbigiisa ah oo aan isku khilaafsanayn axsaabta qaranka shacbiga Somaliland iyo beesha caalamku inaanay ahayn xubin buuxinaysa shuruudihii uu tilmaamay xeerka number 20/2001 xubintaasoo si joogta ah uga soo muuqata TV-yada qaranka iyo TV-yada madaxa bannaanba iyada oo fulinaysa ama u ololeynaysa ama u hadlaysa ama difaacaysa xisbiga kulmiye taasoo xeer jabin ku ah xeerka aan soo sheegay xisbiyada wadani iyo ucid wuxuu mid kasta gaarkiisa qoraal ugu diray daneeyayaasha doorashooyinka iyagoo caddaynaya inaanay aqbalayn xubin xeerku tilmaamayo inaan lagu darin komishanka xisbiga wadanina inaanu mar labaad aqbalaynin in xubin komishankii hore ah mar labaad loo soo magacaabo komishanka cusub walaalayaal waxaan u sheegayaa shacbiga reer Somaliland in beesha caalamku oo aad u danaynaysa in doorashooyinka noo qabsoomaan ay isku dayeen inay baajiyaan in khilaaf cusub oo abuurmo waxay u tageen muuse way la hadleen waxay kala hadleen xubnaha khilaafsan heshiiska ama sharciga hase yeeshee waxay shalay galab kala noqdeen gacmo madhan muuse taas oo dib inoogu celinaysa murankii aynu u qaadanay inaynu xalilay arrintaas oo warwar weyn ku abuuraysa shacbiga reer Somaliland ee horumarka dalkooda iyo nabadiisa jecel iyo saaxiibada aan ku leenahay beesha caalamka ee jecel hirgelinta hanaanka dimuqraadiyadda Somaliland tacabka badanna geliyay xaqiijinteeda waxayna abuuraysaa sawir fool xun oo wiiqaya magaca wanaagsan aynu ku leenahay geeska mowqifka xisbiga wadani waxaanu ku cadaynay waraaqdii aanu u qoray muuse kuna socodsiinay isaga bishii 14-keedii ogeysiiskana aanu siinay dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin beesha caalamku mowqifkaas oo ah in xisbigu si cad u diiday falalka kala ah heshiis burinta iyo xeer jabinta ee uu ku kacay muuse isagoo ah kii loo dhaariyay ilaalintooda waxa kale oo xisbigu hakiyay xubintii komishanka uu magacaabay ilaa inta muuse ka saxayo gafafka badheerka ah ee uu kula kacay heshiiska xisbiyada iyo xeerarka qaranka walaalayaal waxaan idin cadaynaynaa in xisbiga wadani aanu sinaba u aqbali doonin xubin ka mid ah komishankii hore iyo xubno muuse xisbigiisa ka socda maadaama uu ka baxay heshiiskii saddexda xisbi ee uu ku gafay xeer number 20 maadaama uu abuurayo mar walba muran joogta xisbiga wadani markuu arkay tallaabooyinka uu qaaday muuse waxa uu cadaatay inaan xukuumaddiisu aanay diyaar u ahayn in dalkan doorasho ka qabtaan gutaanna waajibaadka dastuurku farayo waxaana maragmadoon u ah in marka muran dhamaadaba uu muuse abuurayo muran hor leh oo cusub walaalayaal muddadii 2 sanadood ahayd ee xilka hayay muuse
waxaanu kula dhaqmaynay muslina uu run sheeg muslina uga qaado hase yeeshee waxaa annaga iyo shacbiga u caddaatay inaanu ahayn muuse nin dhowraya qowlkiisa xurmaynaya heshiisyada uu galo ixtiraamaya xeerarka qaranka beentana u yaqaana xariifnimo iyo guul siyaasadeed waxaa tusaale idinku filan in muuse warbaahinta isla soo taagay inaanu faragelin xubnihii ay soo magacaawday golaha guurtidu iyadoo ay dhammaantiin ka warhaysaan oo tiifiyada qaar barnaamijyo ka sameeyeen in labadii xubnood ugu horreeyey mid ka mid ah uu muuse ku celiyey golaha guurtida xubintaasina way nooshahay hargeysay joogtaa fawsi baana la yidhaahdaa saxaafadduna way waraysan kartaa madaxweynuhu wuxuu u bareeray in shacbigiisa been cad u sheego arrimaha doorashada marka intaas aan ku dhaafo iyadoo ay dayacan yihiin xilalkii loo igmaday muuse oo ay ka mid ahaayeen sugidda amniga kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurka adeegyada bulshada ayaa waxa soo baxaysa maalin walba inuu ku mashquulsan yahay muuse ganacsi gaar ah iyo dhulboob dadka shacbiga ay isku haystaan oo ugu dambeysay dhacdadii shalay warbaahinta ka baxaysay ee aynu maqlaynay baroorta hooyooyinka iyo umulaha iyo cabashada joogtada ah ee dadku muujinaya xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay inuu hormuud ka noqdo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka marka la saxo gefka sharci iyo ku tumashada heshiiska axsaabta qaranka waxaanu ugu baaqaynaa golaha wakiilada inay u kacaan mas-uuliyadda ka saaran toosinta gifafka sharci iyo maamul ee ka yimaada xukuumadda ama fulinta muuse waxaan u sheegaynaa in dulqaadka shacbigu uu xuduud leeyahay dalkana aanu ka yeeli karin sida uu isagu doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته